ma iga aqbali lahayd haddii aan ku iraa Gooryaanku waxa uu ka qayb qaataa waxa aan cunayno oo raashin ah sida badarka, digir, bariis, galley, qamadi iyo wax walba oo ka soo baxo dhulka. Gooryaanka earthworms waxa uu caawiyaa soo saarista hadhuudh badan sida ruushka, ayay yidhaahdeen cilmi-baarayaashu. Xayawaanada is-hoosaysiiya, kuwaas oo jebiya walxaha dabiiciga ah iyo carrada hawada sare, waxay wax ka taraan ilaa 6-5 dalagga hadhuudhka adduunka. wax ku darsiga earthworms ee dalagga hadhuudhka adduunka wuxuu la mid yahay kan ruushka sida lagu sheegay daraasad diiwaangelinaysa doorkooda weyn ee wax soo saarka cuntada. Tani waa 4 milyan oo tan oo cunto ah sanadkii. Cilmi-baarayaashu waxay yidhaahdeen taas oo ka dhigi doonta Gooryaanka dhulka afraad ee wax soo saarka ugu badan adduunka haddii ay ahaan lahayd waddan. Ruushka waxa uu soo saaray 5 tan sanadkii 2022 waxaana uu rajaynayaa in uu soo saaro 2 tan sanadkan. Beeralayda lafdabarta ee ciidda ku nool waxay gacan ka geystaan 5 goosashada miraha sida laga soo xigtay daraasadda oo lagu daabacay isgaadhsiinta dabeecadda toddobaadkan. Dalagga waxaa ka mid ah bariis, galley, qamadi iyo shaciir. haddii celceliska rootiga uu ka kooban yahay 5 xabbo, tani waxay la macno tahay hal kibistiiba waxay ku xiran tahay hawsha Gooryaanka ee la soo saaro. Gooryaanka dhulku waxa uu ka qayb qaataa koritaanka 2-3 ee digirta oo ay ku jiraan digirta soya, digirta iyo digirta. Tani waxay u badan tahay inay yar tahay sababtoo ah digirta ayaa hagaajin kara nitrogen iyaga u gaar ah, taas oo ka dhigaysa inay ku tiirsan yihiin Gooryaanka. Cilmi-baarayaashu waxay yidhaahdeen Gooryaanku marka ay qodaan oo dhulka hoostiisa ku quudiyaan, waxay jebiyaan walxaha dabiiciga ah, waxayna dejiyaan carrada, kordhinta bacriminta iyo samaynta nafaqooyinka loo heli karo noolaha yaryar. Waxay kaloo ka caawiyaan carradu inay qabato oo biyaha ceshato. Saynis yahanadu waxay muddo dheer ka warhayeen in joogitaanka Gooryaanka dhulka uu ka dhigayo dalagga si kasii wanaagsan u koraan dabiiciga. Charles Darwin ayaa wax ka qoray 1881, laakiin cilmi-baaristan ka hor lama ogaanin inta ay leeg tahay. Tani waa dadaalka ugu horreeya ee aan ka warqabo in la isku dayayo in la qaato hal qayb oo kala duwanaanshaha ciidda oo aan dhaho kani waa qiimaha, tani waa waxa ay ina siinayso heer caalami, ayuu yidhi Stephen Fonte oo ah cilmi-baadhaha hormuudka ka ah Jaamacadda Colorado State University. Carradu waa deegaan qalafsan, laakiin runtii waxaa jiray dadaallo aad u yar si loo fahmo micnaha kala duwanaanshaha nooluhu u leeyahay wax soo saarka dalagga adduunka. Sadhguru ama Jaggi Vasudef, kaas oo socdaal 1 maalmood ah mootada ka qaadanaya London una socda Hindiya olole safesoy. Hindi suufi ah Sadhguru oo ku guda jira 1 maalmood hami mooto si uu u badbaadiyo ciidda. Akhri wax dheeraad ah. Cilmi-baadhayaashu waxay eegeen saamaynta Gooryaanku ku leeyahay badarka iyo digirta iyaga oo falanqeeyey oo dul saaray maabyada guryaha carrada iyo wax soo saarka dalagga oo leh atlas caalami ah oo tiro badan oo Gooryaanka dhulka ah. Gooryaanka earthworms waxa uu qayb ka qaatay in ka badan oo ka mid ah meelaha koonfurta caalamka. 1 wax soo saarka hadhuudhka ee ka hooseeya saxaraha Afrika iyo 8 ee Latin America iyo Kariibiyaanka ayaa hoos ugu dhacay Gooryaanka. Cilmi-baarayaashu waxay yidhaahdeen tani waxay u badan tahay sababtoo ah beeralaydani waxay u muuqdaan inay isticmaalaan bacrimiyaasha iyo sunta cayayaanka yar iyagoo ku tiirsan digada iyo walxaha dabiiciga ah ee qudhunka ah, taas oo gacan ka geysanaysa kordhinta tirada dhulka Gooryaanka. Ciidda sare waa meesha 9 cuntada meeraha laga beero. Bishii hore, cilmi-baaris ayaa muujisay in ciidda ay ka kooban tahay in ka badan kala bar dhammaan noocyada. Inkasta oo saamaynta Gooryaanka dhulku ay tahay mid la xusi karo, noolaha kale ee carrada ayaa laga yaabaa inay si siman yihiin sida muhiimka ah, laakiin daraasad dheeri ah ayaa loo baahan yahay, ayuu yidhi wargeysku, oo keliya jajab ayaa la rumaysan yahay in la aqoonsaday. Kala duwanaanshaha noole ee ciidda taariikh ahaan waa la qiimeeyey, ayuu yidhi Fonte, waxaanay daraasaddani muujisay sida ay kor ugu qaado wax soo saarka beeraha. Carradu weli waa sanduuqan weyn ee madow ee weyn oo aynaan si buuxda u fahmin, ayuu yidhi. Shaqadani waxay ina tusinaysaa inay jirto fursad badan oo aan iska indha tirayno. Halkan ka hel dabool dab badan oo dabar go'b ah oo la soco wariyaasha kala duwanaanshaha noole Phoebe Weston iyo Patrick Greenfield oo hore loogu yiqiin Twitter, dhammaan wararkii ugu dambeeyey iyo muuqaalada.